noqon doonaa mas'uulkii labaad ee muslima ee baarlamaanka Jerusalem ka jeedin doona khudbad taariikhda Somaliland iyo horumarka Somaliland uu kaga hadli doono walaalnimo markaan muujin horay mulaaxdayda inkastoo abaalka mudnaan laygu mahadsiinin waa taan halgamayeen mar kale dirir ku meel gaaray qarankaygan maamuuska badan mahad Ilaahay mar hadduu dalkayga mid yahay mahad Ilaahay mar haddaan aqoonsi buuxa helay mahad Ilaahay daawadayaal aqoonsiga Somaliland intii uu yimid waxa iska soo daba dhacayay dadkaas siyaabaha kala duwan uga hadlaya reer Somaliland oo iyagu soo dhaweynaya markaasna aqoonsigaas u dabandegaya maanta waxa la joognaa mid kamid ah bahda fanka Somaliland abwaan xaragaan la joogaa kamid ah bahda halabuurka abwaa ku soo dhaweynaya maxaa kaaga baxay aqoonsiga Somaliland runtii aqoonsiga Somaliland waa wax aan sugaynay muddo dheer oo shacbiga Somaliland muddo 30 sano ku siman marka aqoonsiga aynu ka helay dawladda Israa'iil wuxuu ku yimid dadaal iyo juhdi iyo dimuqraadiyad inaynu adduunka ka iibinay wixii aynu haysanay oo ah doorashooyin xor ah qaran dhammaystiran way jiraan dawlado ka soo horjeeda aqoonsiga Somaliland oo iyagu dano siyaasadeed kale sida Turkiga, Djibouti, Soomaaliya iyo xulafo kale oo ay wataan laakiin aqoonsigan ay dawladda Israa'iil ina siisay maaha mid joogsanaya walaalaheena Soomaaliyana waxaan leenahay toobadu yeedin seegin sidii aanu anagu markii hore Djibouti baasaboorkeeda martida ugu ahaan jirnay ayay Soomaaliyana waa dad walaalaheena aanu leenahay martibaad noo noqon doontaan inaad baasaboorkayga ku tagtaan Jerusalem iyo Israa'iil iyo meel kastoo adduunka ka mid ah in baasaboorkaygu idin fududaan doono haddii Somaliland aqoonsigeedu markuu dhammaystirmo insha Allah ta'ala daxrabay suxufiga cadaayir waa tahay aqoonsiga Somaliland wuxuu soo kordhinayaa dadka xagga diinta ka eegaya xagga u saleynayna maxad runtii diinta iyo dawladnimadu waa kala laba Somaliland diinta kama bixin Israa'iil waxay ka mid ahayd wadamadii Somaliland aqoonsaday 60kii markii lagu dhawaaqay Somaliland British Protectorate ay dawladda Ingiriisku ay nasisay xorriyadda ayuun bay ka mid ahayd Israa'iil cilaaqaadna waa la sameyn karaa Soomaaliya way joogaan dawlado Mareykan iyo reer galbeed u badan marka iyagaba kuma qabsano ma nidhaahno maxay idin la joogaan kuwaas waa gaalo iyo macaamil aan la sameynina midna marka Somaliland xaq bay u leedahay in Israa'iil la samaysato heshiis madaxweyne Cirana wuxuu noqon doonaa mas'uulkii labaad ee muslima ee baarlamaanka Jerusalem ka jeedin doona khudbad taariikhda Somaliland iyo horumarka Somaliland uu kaga hadli doono iyo waxaanu isdhaafsan doono inaga iyo Israa'iil maxaa kaaga baxay waftigii shalay runtii waftigii shalay tolay wuxuu ka miisaan cuslaa madaxweyne kasta oo Afrika ka socon lahaa hadduu Abiy Ahmed iman lahaa iyo kan Nigeria hadduu iman lahaa waxa ka miisaan cuslaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Israa'iil ee shalay booqashada ku yimid Somaliland marka runtii waan hambalyeeynaya oo wax lagu farxo weeyaan waa midnimadii Somaliland iyo rajadii shacabka soo laabatay baan leeyahay warbaahinta caalamku si uga falcelisay markaad xagga suxufinimada aad u rabto intii warbaahinta caalamku waxa weeyaan si qiimo leh bay u tabinaysay badankeeda marka laga yimaado afar qof oo dawladahan ka soo horjeeda aqoonsiga Somaliland ay shidaaliyaan kuwaasina ma hor joogsan karayaan arintani waa arrin ilaa qaramada midoobay gaadhay oo Israa'iil halka ay kaga sheekaysay taariikhda Somaliland oo ay ku difaacday madaxbannaanida Somaliland waana soconaysaa runtii saxaafadda Somaliland waxa looga baahan yahay meel uga soo wada jeestaan oo luqad kasta lagu qoro Ingiriisi haday noqoto iyo Carabi u noqoto haday noqotoba waa in la mideeyaa xooggeena iyo aragtida aynu u gudbinayno bulshada caalamka maanta meel baynu uga soo wada jeesanaynaa qaranimada iyo madaxbannaanida Somaliland jiritaankeeda sidaynu caalamka u gaarsiinayno xaggii suugaanta maadaama halabuur ka mid tahay waxa ugu tala gasheen in aqoonsiga kaga hadlaysana mid soo dhaweynaysan ma jiraan intii gabayaro kooban baan halkan ka soo jeedinayaa waxaan u oranayaa maalintan guumaysiga tirtiray muqaddaskii guusha maalintan dadaalkii hirgeliyay goostay midhihiisa in dadkaygu maamuus hantiyay soo mid dhaba maaha walaalnimo markaan muujin horay mulaaxdayda inkastoo abaalka mudnaan laygu mahadsiinin waa taan halgamayeen mar kale dirir ku meel gaaray calankaygan muuqday xurmadan madaxa ay saaran dib wixii dartii loo mutay loona maray xaalad
maalintan xornimo gaadhay soo muu mugdigii guudhin calool xumo ma qabo maantee mahad ilaahay dheh qarankaygan maamuuska badan mahad ilaahay dheh mar hadduu dalkaygii mid yahay mahad ilaahay dheh mar haddaan aqoonsi buuxa helay mahad ilaahay dheh intaas aad ku soo dhaweysaa qoys haa intaas ku soo dhaweysaa